السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan ka hadli doonaa maanta insha allahu sidee ku noqonaysaa qof guuleysta, sidee uga dhigaysaa ama u noqonaysaa qof guuleysta. laakiinse maxaa lagaga baahan yahay? waxaad gaari kartaa guul mid aad iyo aad u sareysa, waxaad noqon kartaa qofka aad doonaysid, laakiinse waxaa lagaga baahan yahay in aad raacdid oo martid waddadii ay mareen dadka guuleysta. haddaba maxaa ay sameeyaan dadka guuleysta? maxaa ay halkaa gaadhsiiyey ee ay ku gaadheen guusha aadkii aadka u sareysa? haddaba waxay ku gaadheen waa caadooyin wanaagsan oo ay sameeyeen oo ay joogteeyeen. sideedaba guushana waxaa la dhahaa waxa ay tahay waa inaad samaysid caadooyin wanaagsan oo kaa dhigaya amase ku gaadhsiinaya guusha. haddaba waxaanaynu ka baahan yahay dhammaanteen inaynu samaysano caadooyinkan wanaagsan ayna gaadhsiinaya guusha. haddaba videoga ka dambeeya insha allahu waxaan kugu sheegi doonaa maxaa kaa dhigaya, ama haddaan si kale u dhigo, sidee aad ugu dabaqi kartaa nafsadaada caadooyinka aadka u wanaagsan. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. waxaad ku mahadsan tahay daawashada aad daawanaysid videogeena. waayo videogeenu waa videoga keliya ee beddelaya noloshaada. haddaba ha iloobin inaad ku samaysid subscribe. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay.